waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gasheen munaasabaddan furitaanka National Privacy Week oo ay qabatay hay'adda dhowrista xogta qaranka ay nagana support gareeyeen bahda arkaan iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Isbuuca qaran ee dhowrista xogta qaranka sida idinkaga muuqataahu waa isbuuc laga xuso dunida oo dhan hay'ad waliba oo ka dhisan waddankaasi ay ka dhisan tahay data protection. Isbuucaani waa isbuuc u gaar ah oo ay xusaan kana shaqeeyaan wacyigelinta iyo baraarujinta iyo dhaxgalka bulshada iyo ka qayb qaadashada. dowladda Soomaaliya hay'adda dhowrista xogta oo u xil saaran sharcigaasi dhowrista xogta ayaduna waxay qaadatay mas'uuliyadeedii ahayd inay soo gaarsiiso bulshada Soomaaliyeed. sida aad dareemaysiin howlkan quruxda badan ee jaamacadda ummadda in aan ka dhigno xafladan oo aan ku soo aadino waxay noo lahayd micno gooniya haddaan nahay hay'adda dhowrista xogta, taasoo ay ka mid tahay wacyigelinta qayb ka mid ah inaan ka bilaabno waxbarashada dhexdeeda. sababtoo ah bulshadu asalkeedii iyo guud ahaanteedba waxbarashada ay ka imaadaan. waxaan aan rabnaa in la bartaano waa sharci, sharciguna sidiisaba cidda nagu support gareyn kartaa waa waxbarashada. hay'adda dhowrista xogta qaranka sharcigeedii waxaa la approve gareeyay oo golaha baarlamaanka labadiisa aqal ay saxiixeen March 2023. waqti badan oo ka soo wareegtay dhismihii hay'adda iyo howlgelinteedii ayaan aad loogu mashquulsanaa. alxamdulillah waxaa hadda noo hirgashay inaan diyaarinay agabkii iyo howlwadeennadii looga baahnaa inay ka shaqo galaan sharciga dhowrista xogta qaranka kuna shaqeeyaan. dhismihii hay'adda waan dhammaystirnay, ilaahay baana ku mahadsan. waxaa kaloo la approve gareeyay xeer nidaamyihii dhowrista xogta qaranka oo bishii hadda la soo dhaafay golaha wasiiradu ay soo approve gareeyeen. waxaa kaloo noo qabsoomay inaan diyaarinay policiyadii guidelineskii procedureskii looga baahnaa in ay ku dhaqan galaan sharciga dhowrista xogta ee private sectorka iyo public intaba looga baahnaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan markuu abuuray wuxuu noo soo diray kitaab qur'aan noo soo diray, wuxuu noo soo raaciyay rasuulkiina soo gaarsiin lahaa. kadib cidda ku dhaqmi weydana waxaa sugaysa uun ciqaab. hay'adda dhowrista xogta qaranka sharcigeeda haddii la keenay, hay'addii dhaqan gelinahaydna la keenay, hadda waxaa u taagannahay wacyigelinta inaan samayno idin soo gaarsiino kitaabkiina loo soo dhiibay. ciqaabtii iyo mataqaanaa way daba socotaa, ciddii ku dhaqmi weydo ciqaabaheeda way daba socotaa. sida hadda doctor maxamed uu sheegay sawirro la isku haysta in la arkaa laga yaabaa oo dacwadu ay haddaba furmato. marka waxaa leeyahay dacwadu hadda ma furmi karto annagoonan diiwaan gelinin dadkii dacwada laga gudbin lahaa oo xogta gacanta ku hayo. sidaa daraaddeed waxaan rabaa munaasabaddan inaan uga faa'iidaysto oo aan ku iclaamiyo in maanta oo taariikhdu ay tahay 28 January 2026 ay hay'adda dhowrista xogta qaranka si official ay u soo bandhigayso in diiwaangelintii ay furanta, loona baahan yahay inay iska soo diiwaangeliyaan cid waliba oo hayso xog muwaadin, hadduu ahaan lahayd public oo dowladda ah, hay'adaha dowladda, wasaaradaha, iyo haddii ahaan lahayd private sectorka xogta muwaadiniinta gacanta ku haya, iyo haddii ahaan lahayd NGOs. intaba wuxuu sharciga L05 uu qoraya inay iska diiwaangeliyaan hay'adda dhowrista xogta qaranka. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinkaga mahad celinayaa ka soo qaybgalka xafladdan qiimaha badan ee maanta noo furmatay
annagoo ugu talagalnay wacyigelinta iyo baraarujinta inaan muxuu ahaayey ka samayno isbuucan loogu talagalay isbuuca xogta qaranka inaad nagala soo qayb gashaan xafladda furitaankeeda nagala qayb noqotaan maanta waxaa noo bilaabanayo isbuucii baraarujinta iyo wacyigelinta waxaan rabnaa inaan activity kale oo wacyigelin aan qabanno haddii ahaan lahayd dood cilmiyeysan jaamacadaha oo ka qayb galno inaan mataqaanaa seminaaro qabanno isdhexgal bulsho intaba waxaan rabnaa inaan adinkuna aad noo noqotiin inaad qaadiin risaalada maanta halkaan idinkaga soo baxday aadna barataan xuquuqda aad leedihiin iyo xaqa aad leedihiin sharciga dhowrista xogta aad kala soo degtaan website-ka akhrisaan fahamtaan waxa uu rights idin siinayo waxaan ilaahay maanta prestationkii xaq baad u leedihiin inaad xogtiina dhihi kartaan xogtaan loogu talagelin in la qaato xogtaan ma aha midii saxda ahayd oo aad iga qaadanaysay inaad xogtayda ii saxdo inaad xogtayda tirto intaba meesha aad ka baranaysaan waa sharciga dhowrista xogta adinkaa iskale adinkaan iliigu talagalay ma aha wax hay-adda dhowrista xogta qaranka keliya loogu talagalay maaha waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idinkaga mahad celinayaa kasoo qaybgalkiina iyo waqtiga qiimaha badan ee aad noo soo hurteen mar walibana adinkaan idinka midnahay bulshadaan ka midnahay bulshadaan u adeegnaa bulshadaana la soconnaa hadduu ilaahay idmo ardayda iyo dhallinyarada boqolkiiba 70 ummadda Soomaaliyeed waa dhallinyarada inta ugu badan social media ayaan hadda wada isticmaalnaa social media-huna wuxuu leeyahay caqabadihiisa waa inaan fahmi karnaa waxa muxuu ahaay consent-kana laga qaaday inaan akhrin karno fahmi karno cookska website-yada markaan booqano kale nala weydiinayo xogteena waxa nala weydiinayo waa inaan fahmi karno ama aan diidi karno aad baa u mahadsantihiin waqtiga oo dheer awgii waan soo gabagabaysanaynaa xafladeennii waana soo xiranaynaa waxaa noo bilowday isbuucii wacyigelinta sidaad la socotaan hay-adduna maanta waxay ka bilaabatay wacyigelinteedii saas ayay u sii wadi doontaa waadna mahadsantihiin